وعامو mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kordhaco tu ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ogaas warfaan naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan leh oo igu tegay ayaan u sii shiiqsadaa tudac walba waxaa iga soo baxa macno cusub oo awal iga diimoonaa isagase weligiiba ku dugnaa madaxa yamaankaba waxaan u ruxaa falsamida isku sargoynta meerisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada uu maantaa ka maansoonayo markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay raagogaas wuxuu inooga tegey maanse qurux iyo quruudba isku darsatay tixo ay midhiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacayl ah oo haddaanay iyagu jireen maansadeennii hore ay dareenkaasba ka maraan lahayd waxaa iyagana laga hayaa tixo xalaacad ah kuwo baroordiiq ah tu ammaan faras ah iyo weliba kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay isqoomeen ujeeddooyinkaas oo badidoodii la wada maqlay ka sokow raaga wuxuu tiriyey geeraar uu geela ku tilmaamay kaasoo aan filaayo bulshada soomaalida inuusan si baahsan ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u fiirsato waa geeraar meelo dhowr ah kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaan qayaxantiisu ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa waxdheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii raacatada ahayd ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu soo jeedinayo iyo qayb walba weydiinta ashqaraarka huwan ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabayaagu aanu afka inoogu tirayn dhinaca kale maansayahanada soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siiyaan baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu qooqan yahay tilmaamaha la yaab kale ee uu la soo baxo jiddahaas isaga ah raaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo awrka gurgur gaadiidka aan la'aantiis qoys reermiyi ay dhaqmi karin abaarna ka soo doogi karin dhammaadka tixda ayuu inagu xusuusinayaa sida awrka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba sidoo kale wuxuu madahayga raaga ku keliyeystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafsadeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kelimada horweynka iyo hareeradaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waa beriga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee uu ololkeedu isu baxo wuxuu yidhi gucgucdeeda arooriyiyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habilaad cirka ooga dawaamay dayaxoo galka diiday dhulka ooga sariiday dhirta oo gabalkeed iyo garaskiiba har waayey oo xanagaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne aweygeeda hallaaxaay xumbadii gadfanay hadduu giirku dareero oo barqin loo gambaraasho oo adhina boodka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashirkoode away reega gobeeye ay xeryihii ginginna gabxaddaada liyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto korankeeda la gaato haddaan soo garbaduubo oo ganka loo kabadeeyo ambaarkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xargal loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay nirigtii iyo midka gaadha todhay iyo ka gamuunka daleeyiyo gaalleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree awa gaatamihii dhegaystayaal geeraarkii waa kaa waxaase ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meerisyadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree away gaatamihii